kulanti wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka codka bulshada oo aad bishiiba hal jeer aad kala socotaan baraha bulshada ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SJS iyo warbaahinta kale ee bahwadaaga nala ah waxaana xalaqadan marti uga ah Cabdifataax Qorane oo kamid ah shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada waxa uu sidoo kale kamid ahaa ama kamid yahay dhalinyarada aadka ugu ololeysa arrimaha banaanbaxa ee lagu diidan yahay barakicinta iyo sidoo kale dowladda madaxweynadeedu dhamaaday ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud cabdifataax kusoo dhawo barnaamijka codka bulshada walaalkay maxamed bulbul waa mahadsan tahay waa dhawahay waana ku dhawahay barnaamijka codka bulshada oo ku dhawahay haddii aad usii gudagalo magacayga oo saddexan waa Cabdifataax Cabdi Qorane ku dhashay gobolka Baay ku waxbartay magaalada Muqdisho dugsiga hoose ilaa sare iyo heerka jaamacadda kaga baxay bartay heerka jaamacaddana kulliyadda qaanuunka sharciga waa dhawahay cabdifataax waxaad marka hore warbixin kooban naga siisaa maxaa kugu dhiirigeliyay inaad banaanbaxyadan hadda magaalada ka socdo hormuud inaad u noqoto aad ka qayb qaadato goorma ayaadna ku biirtay waa mahadsan tahay maxamedow barnaamijkan inaan hormuud ka noqdo ama aan ku biiro dhalinyarada hormuud ku ah ololeynta dulmiga looga soo horjeedo waxyaabaha dhacayo waxay ugu soo dhalatay maalintii aan soo garaadsaday dalkan annaga waxaan kusoo barbaanay asoo burbur iyo dhibaato iyo ay dhibaato iska jiraan la soo kowsanay marka waxaan go'aansaday haddii aan jaanis u helo inaan u ololeeyo dhibaatooyinka jira inaan inta karaankayga in aan ka hortegi karo ciddii ugu caawin karta ama aan ku caawin karo in ayadana ka hortagayso inaan kala si wadajir aan kaga hortagno fursadna waa u helay maanta waa meesha aan taaganayo madaxweynihii madaxweynaha kororsaday ee ummadda dhibaateynayo inaan maanta aniga iyo dhalinyaro fara badan inaan ka hortagno ilaahay jaanis ii siiyey dulmigaas inaan ka hortagno muddo dheer igu soo maaxatay waana sii wada doonaa biidnillaahi kariim intaan noolahay cabdifataax dhawaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlayay munaasabadda 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu aad u dhaliilay dhalinyarada Soomaaliyeed si gaar ah dhalinyarada banaanbax asaga ka dhana magaaladan ka wado wuxuu ku tilmaamay kuwo xaaba ah oo ay mucaaradku rabaan inay shitaan waa mahadsan tahay madaxweynaha asiga unbaa un laba afleynay annaga wadadii unbaa ku taaganay shalay asin baana lahaa hal mudaharaade oo dimuqraadiyadda sharciga aan siinay mudaharaad asin baana lahaa maantana asin baa dhahay asiga waxa laga rabaa jawaabta ma shal saxnaa mise maanta saxan yahay taas asaan u daynana shalay markii anaga asiga aan garab taagnayn oo ololeynayno marnaay email kasta aan ugu horboodayna xaaba mahamiya markaas waa saxneen maantana oo dadkii hooyooyinkana uu nagu horjeedayo aan diidnay oo musuqmaasuq iyo eexda aan diidnay muddo kororsiga aan diidnay dastuurka lagu tumanayo aan diidnay xaaba miyaan noqonaynaa xaaba ma noqonayno asaa waxaa waaye shaqsi aan meel loo raacda lahayn oo maaragtay anshaxa hogaamineedna aan lahayn madaxweynaha waxaa laga rabaa sida hogaanka inuu anshax lahadaa la rabaa hogaanka waxaa la rabaa inuu yeesho dulqaad iyo maaragtay iyo waxaa la rabaa iyo waxyaabaha uu ballan qaadayo inuu ka dhabeeyaa la rabaa marka madaxweynaha asigaa waddada ka leexday annaga waddadan taaganahay waddadaanna waa taagnaanaynaa madaxweyne kastoo imaadana anika shaqsi ahaan cabdifataaxaan ah niyo ana horta interest meeshaan kama raadinayo haddaa xil ka qabto dowladnimadana waxaa ugu shaqeynaya sidii ilaahay uu maaragtay igula daardaarmay oo inuu cadaalad aan kula sameeyo madaxweyne imaado oo hadduu ka leexdo waddada saxda ahaydna waxaan leenahay madaxweyne ka joog waddadan waddada saxda ahayd maa waddada saxda waa tanaa oo ummadda ugu adeeg mid asiga ku gaar maaha dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa ha noqonina dad maaragtay interest ku raadiya noqdo dad bulshada wax ka bedela marka dhalinyaradan inta anaga ka warqabo inta isdhaarsanay waa wadana barnaamijkan xabsi dhalinyarada lagu cabsi geliyo deeqana ma laha dhalinyarada ma hadii koox la xiro koox kala soo baxayso bal waa lagu sii adkaysanaa waana lagu sii dhiirigelinaa haddana muddaxileedkiisu waa dhamaaday madaxweynaha sharciyad uma haysto wuxuu noqonayaa shakhsiyaad iska xirtu noqonaya dhalinyarada Soomaaliyeed iska xirtu noqonaya marka waa wadaynaa madaxweynaha 15 May waxa ay aan dareed maalintaas inay dhalinyarada Soomaaliyeed xabsiyada ku jireen oo inuu soo daayay xitaa oo dhaho soo ciid xitaa oo maalintiina soo dhalinyaradiina kala qayb gala marka madaxweynaha asaa waxa laga rabaa inuu uga jawaabo madaxweyne oo mashalaas aad qaldaneed oo maanta saxantahay oo xaaba aan noqonaynaa
mise shala oo maaragtay aad qalday mise maanta midaas qaldanta mise asaxanta asaa noo soo sheego. dhalinyarada banaanbaxa horkacaysa oo aad adigu ka mid tahay maxay rabaan? annaga waxaa rabnaa dalkan inuu kala dambeyn yeesho. dalkan waxaan ka rabnaa in uu hay'adihiisa ay kala madax bannaanaadaan, sharci dejintii iyo maaragtay iyo dhammaan hay'adaha qaybahooda kala duwan, in mid kastaba goonida loola xisaabtamo, mid kastaba shaqada ay lahayd inay qabsato. ma rabno in maaragtay dhammaan hay'adaha in hal shaqsi ay hoos yimaadaan. madaxweynaha hadda talada ka degay iyo kan soo socdo waa in maaragtay ay kala madax bannaanaadaan. ma kala madax bannaan hadda. madaxweyne kastoo imaado wuxuu ku maaragtay qofku u dhiibo wuxuu ku handadaa in xilka uu waynayo ama hadduu soo rabo inuu u sameeyo. garsoorka hadda waxaa ka jira waxyaabo fara badan oo maaragtay dadkii la barankiciyey, dadka maalin kasto cabashadooda si la rabay uma tabiyaan, umana soo bandhigaan. intaas waxay ku tusaysaa in hogaamiyaha uu cadaadis ku hayo, uu leeyahay ama xukunka ama xilka aydan ka qaada ama waxaan raba ii sameeyo. marka waxaan rabnaa dhalinyaradu waxay rabaan in waxay kala madax bannaan transparent inay jirto, isla xisaabtan saxna inuu jiro. haddaa intaas rabtaan, intaas miyaadan ku raadin karin in aad banaanbax nabdoon aad samaysaan? miyaadan intaas ku raadin karin in aad wadooyinka magaalada isku soo baxdaan? maxaa banaanbaxyadiin kusoo koobay aagga ay ku degan yihiin xubnaha mucaaradka? waa mahadsantahay, su-aal fiican waaye. madaxweynaha asaanba diyaar u ahayn ama aan barrinba shaqsi meel ka socdo xasan waxaan ka bedel asaanba ogoleenba, maba ogolo madaxweynaha. marka waa soo baxnay tir dhowr jeer ah. shalay ma ahayd dar jimcihii waa isku soo baxnay mara fara imaan boorra wadan aan leena madaxweyne xukunka waa kaa dhamaaday, aan leena madaxweyne barankicinta jooji, mikrofona wadan dhalinyarada Soomaaliyeed oo la rabay meesha amniga ay sugaan anoola soo adeegsoona kala ceyrsaday oo maaragtay qaarna xirxirtay qaar jir dilay oo hadda dhaawacyo ah. marka aawe marka haddii aan u soo baxnay waa soo baxnay aawe waxay dhashay in meeshii aan noloshanada ama aan ku badbaadi karin inaan dabada la galno oo eeridaas aan miciin badno. marka haddana waa wadeynaa oo hadda eeridan hataa ma ka dhigi doono hadduu ilaahay idmo, meelo kale oo loo qorsheeyaa jiro ayagana ka samayn doonaa. marka ma jirto wax oo maaragtay dimuqraadiyada oo meeshaan ka jirto. mara anaga intaan waa isxilqaameynaa, riska u galaynaa. waxaan waxaa waaye ama ku dhimanaysaa ama waxa waa dhaqan galayaanoo xasana xilka ka tagaayo oo ama keenayo miiskooda hadalka wixii oo heshiis lagu yahay. marka dhalinyarada ma rabaan ama ma wataan wax gooni ah. anaga daraata ma hubaysaneen, mikrofona wata ilaahay lagu dhaariyey. dhalinyarada waxaa lagu soo sawiray boorar, waxaa lagu soo sawiray mikrofona oo loogu talagalay inta qof uu ku muujin lahaa shucuurtiisa iyo maaragtay wuxuu asi uu rabo. حتى وحال ربعت إني بحال سكال ودقة حتى أو قف كاتها wax gacanta u geliyaan oo hataa amniga ka hor imaan hataa meesha sameeyay qofkii wixii xaq u lahaa ay ku soo sawareen. marka waxay ku tusaysaa in ayaga naftirkooda aysan dowladnimo ahaan u diyaarsaneen, dad oo maartay ay yihiin waxba aan la socon. qof kasta oo xasan wax ka sheegay inay u soo xiraan shalay meeshaan aan mudaharaad ku dhigaynay waxaan hortaagnaa wuxuu ahaa taliyihii degmada wadajir u ahaa xalina waa tii loo xir xaq. marka laakiin shalay banaanbixi aad wadateen ciidan militari idin horkacay. annaga ciidankaas militariga ah gadaal ay nooga imaadeen meesha waxaan taagnayn oo nagula hortaagnaa muddo hal saac kale nagula hortaagnaa. markii dambe annaga dhalinyarada qaarkooda ciidanka militari meesha ay joogeen ayaga maartay dib ugu laabtay waxay dhaheen meeshaan ciyaala meeshaan nagu qashqashaaday kaale naga fiiri ayagan duulaama oo ahanba askarta si muuqaalka idin ka arki kartaan ciidan oo dagaal ku jira ma ahanba. waxay ahaayeen ciidankii oo booliska u caayeen oo ay lahaayeen walaalayaal ilmaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed dhibanayaasha maxaa ka rabtaan. ayagan ay lahaayeen ma rabno inaan ugu mudaharaado macallimahadiina dhahay maartay sameeyay soo dhaafin oo muuqaalay uu duubay taliyaha waa fiirin kartaan taliyaha degmada oo wadajir muuqaal u duubay oo markasta muuqaal duuba wuxuu u diray macallimahada u diray oo laha meeshii soo dhaafin. marka dhalinyarada waxay rabaan in ay bahasha ay kala banaanaato oo xorriyadooda ay helaan, inay afkaartooda cabiraan, inaan la ajujuubin. haddii waxa ay sidaan ku socdaan waa sii soconayaan ma waa ka sii darayaan.
madaxweynaha hadduu u malaynaya inay xabsi iyo cagjugleyn iyo dad la hor istaagay inuu xal ay tahay madaxweynuhu xal ma aha madaxweynuhu xal ma aha taas meesha kaama jirto dadkan duulaan kuguma ahan ha cabiraan dareenkooda u ogolow adaa shalay lahaa maaragtay mudaharaad adaa lahaa maaragtay dastuurka ayaan siinayo marka dhalinyaradu wax kalama rabaan ciday duulaan ku yimaahan meeshaan eridan waxay ka dhigayaan waxay u arkaanba eri maaragtay dimuqraadiyad ay ka jirto eridan jaziira dimuqraadiyada ka jirto marka eri xeyndaafka dimuqraadiyadda dhahdaa ha eridan dimuqraadiyada ay ka jirto waa inta kale waxaa haysta halkaad idinka dowladda ku diidan tihiin barakicinta iyo muddo kordhinta madaxweynaha loo sameeyey isla todobaadkan waxaa dhacay banaanbax kale oo lagu taageerayo dowladda Soomaaliya oo ay garwadeen ka ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed wuxuu ka dhacay go'aaska taleex uu ka dhacay iyagu miyaysan dhankooda dhalinyaro kala ahayn niyow dhalinyarada ku sheega iyo hoggaanka xiriirka ka dhaxeeyo oo kuwa hadda sheegayso xiriirka dhaxeeyo waxa waaye qaar si qabyaalaysan ay u taageerayaan oo ay ku leeyihiin ninkan waa in adeer ahaan u taageeraya qaar maaragtay gobollo ay meel ka fog ka imaadeen maxay waxay u joogaan interest oo TikTok waaye TikTok godaas inuu ka dam rabaan waxay rabaan xalfadda madaxweynaha inay wax ka duubtaan inay hay'isiime ay ka qayb galaan marka waa dhalinyaro interest meesha u imaaday qaybta kale oo meesha joogtana waxa waaye kuwa oo $5 soo siiyay oo la soo saaray gawaari waaweyn oo basas iyo hoomey la soo saaray oo si meesha loogu quruxsado kuwaas markii $5 loo tuuro ayna baxayaan anaga haddaan dhana imaada waa noo imaanay laakiin anaga muu baan anaga dhibinaashiyaab iyo aabanayba laakiin waa dad oo ayaga la soo kirsto meel laga keena waa laakiin waxaan tusaale ahaan waxa sheegtay in dadka banaanbaxa inta badan ku jiray ay ahaayeen kuwa madaxweynaha ku reer ama ku xaafada laakiin dhalinyarada banaanbixiis waxa ku jira kuwa reer waqooyi waaba ku sheegay Soomaaliland waa ku sheegay waxaan ku dhahay dhalinyaro oo waxa jirta oo gobollo kale jiraan ka soo jeedo oo saxan tahay laakiin waxay meesha u joogaan interest ku joogaan waxay rabaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iyo xukuumadan waxaana garaangal isaga leeyihiin waxay rabaan TikTok in iska duubtaan waxay rabaan in xayeysiimaha iyo meelaha si qiiban $100 iyo $50 iyo waxaan iska arursadaan iska rabaan waa dad maaragtay ku afkaar aan ahayn laakiin la soo qasbay waxa la maanta haloo jawaab mucaaradkii dhalinyaradooda haloo jawaab marka dad oo saas loo soo meesha u joogaan oo dad qadiyad ay ka tahay maahan sida hadalkaaga hadda ka muuqdo yani waxa ula jeedaa tiimka habeenkii banaanbaxay talax isugu soo baxay waxay ahaayeen kuwa u dabran villa Soomaaliya absolutely ha idinkii u dabrantihiin anaga tihiin dhalinyarada aad sheegay waxaan noo sheegtay dadka dulma in ay u hadashaan idinka xindaabka mucaaradka ku jirtaan sax anaga waa ku jirnaa xindaabka yaa idin taageero maxamedow waa mahadsan tahay annaga xindaabka qaarna way ku jiraan qaarna way ka baxsan yihiin hadban duruufaha la noolna annaga ciddii darana waxay la joogtaa xindaabka oo mucaaradka ay joogaan ayagoo hataa aan ajenda kale aan kula joogin keliya magangeliye kula joogo ceebna ma aha inaad meel magangeliye ku helayso inaad joogtid ceeb ma aha bulshada kalena way jiraan oo dhibanayaasha oon ku xirnay mucaaradka oo guryahooda laga baran kiciyay waxaa jiro dad oo nidaamkan lagu musuqmaasuqay ilmahooda laga soo ceeriyay shaqada laga soo ceeriyaa jiro aabba waxaan arkay wiil iyo laba gabdhood u dhalay gobolka u shaqeynaya lasoo fiij oo shaqada laga soo ceeriy dadkaas waa dhibanayaal loona soo ceeriyey arrimo siyaasadeed loo soo fiijaa jiro iyo arrimo maaragtay oo guddoomiyaha iyo dhammaan siyaasiyiinta oo hadda xukunka uu ka dhamaaday ay ku takrifalaya awooddaas marka dadkaas waa dhibanayaal dadkaasaa garabkanaga ama anagana garab aan u nahay ayagana garabbaha naga taagan marka anaga cidaan u dabrinahay amana maalgelisa mabalhabo annaga hadda maanta cidna maalgelisa cid kasta waxay ku tiirsan tahay jaabkeeda oo ah $50 $100 oo ay ka helaan eheladooda ay ka helaan cid oo nagu fangaraysa ma jirto tabashooyinkiina nagamana muuqatabo tabashooyinkiina ama diidmadiina haddii dawladdu dhageysan wayso maxaa dhacay niyahow haddii ay dhageysan wayso madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo xukuumadda oo mudaharaadkeeda dhamaaday haddii dhageysan waayaan nimayahow wax kasta way isbedelayaan dadka u maleynaysaan inay maaragtay cajisayaan ama xabsiyada lagu cabsigelinayo waxaas ma jirayso dalkan waxaa lagu joogaa awood qaybsi iyo maaragtay iyo isu dhimri isdhegeysa lagu joogaa cid ka awoodba ma leh
dhalinyarada haddii oo saan oo loo sii wado oo ay lagu cabsigeliyo oo la jir dilo waxay kasii qaadayaan inay awood dheeri la imaadaan ana ma sheegay awooddaas dheeri meesha kala imaan doonaa laakiin awood dheeri imaan doonto waxaan leeyahay dhagaha in oo la iska daaray oo waxba la dhageysan in la iska dhaafo in dhagaha wax lagu dhageysto in indhaha wax lagu arko loo baahan yahay oo dhalinyaradan la handadayo waxay noqon doonaa madaxda berri ah kuwa hadda wax handadaayeen waxa waa dhalinyaro si la isku noolaan doonaa marka dhan kasta waxaan leeyahay mid mustaqbalina waxba isbedel imaan doona yaana la isku wajahmaan oo berri xitaa anoo ku rabin in aan wax ku xayeelay ama aan ku dulminayn qalbiga waxa ku jirta qof maartay ashara dulmisin ahay oo maartay markasto aad ka qoomeynayso marka taasi san dhicin mid kale oo dhalinyarada awood intee la imaan karaan wax kaas waa iska suurtagal haddii inaan sii faahfaahin jabhad ma abuurmayso laakiin waxaan ku raadinaynaa waddo sax ah oo sharciyadan ku raadinaynaa oo dimuqraadiyad ah anigoona waxba haysan oo hub aan qaadanayn annaga ma rabno dalkan inuu naga burburo dalkan annagoo maartay annagoo waxaan ku dhalanay burburan ku dhalanay still wixii aan kusii dhex jirnaa laakiin shalay maanta way dhaantaa oo maalin kastaba dowladnimada waa isu qori isu dhiib haddii saas aysan ku noqonin oo maartay jajuubo oo san kale iska gelay qori oo xukunka la sii joogana ma sii soconayso Soomaali way kala tashanaysaa hadda Somaliland hore u baxday oo waxa waaye waaba Israa'iil aba ictiraaftay Puntland waxa waaye gooni u taagan tahay Jubaland gooni u taagan tahay maamul koonfur galbeed la xasina wuu burburay oo wax hadda maanta oo sharciyada ka jiro ma jiraanba oo nin oo madaxweyne uu yahay gudoomiye baarlamaan uu yahay wax sharciyada dalka rudka ma jirto dalka waxa xal u ah xilliga hadda lagu jirno oo maartay madaxweynahan uu dhamaaday hay'adii madaxweynaha uu ka dhamaaday xal aan doorashada ma jirto wax kasta waxa ay samaan doonaa markii doorashada heshiis laga wada noqdo dhulkan la boobayo oo ganacsatada iska dhuuqaysi madaxweynaha iyo ehelkiisa iska dhuuqayaan waa la soo celin doonaa waana la xisaabtami doonaa sharciyeedii lagu soo celin doonaa madaxweynahana waxaan leenahay madaxweynuhu shalay professor oo kulan wili annaga wili maartay waa ku ixtiraamayna dhalinyaro Soomaaliyeed anaga kuma aflagaadeynaan wax asmays waa samays waxaan kulanay professor shalay adaa lahaa dimuqraadiyadda wal oolan jiray dimuqraadiyadda wal oolanaysa madaxweynuhu waqtiga soo dhamaaday xitaa war soo laabo miiskooda hadal ku soo laabo ummadda dhageyso dadku waa baranka cisay war dhageyso muuqaalada iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada la baahdilayo oo xabsiyada lagu ciqaabayo madaxweynuhu dhageyso daawo aan madaxweynaha kaga yaabanaybo madaxweynaha horta ma la socdo miyaa waxaan madaxweynaha miyaan loo shideen madaxweynaha ma telefoon nacla inta loo dhiibiyaa ugu wardambeysay markuu xukunka imaaday madaxweynaha haduu sidan uu raali ku yahay oo dhibaatadan uu raali ku yahay waa masiibo weyn oo qof hogaamineed aan laga filnayn haddii marka ay jirto qalbi oo bini'aadamku macnaha wuu qaldami karaa madaxweynaha wuu qaldami karaa qaladkiisana waxa nasaan u yahay qof waa bini'aadam waa inuu soo laabto oo waxaan uu ka tanaasulo sharciga oo jaabka kaligiis uu sameeyo jaab uu ku wato iyo maartay barakicintan cagaftan afar la habeenka iska dheelmanaysa 9 saac inuu joojiyo dhalinyarada wax xabsiyada u taxaabaa inuu joojiyo hadadaada inuu joojiyo waxaan kusoo gabagabeynaa qodobkayga hadda aan ku jiro taliyaha booliiska oo xalay u hanjabaayay madax dalkan soo xukuntay hadan rajo kale nin dhalinyaro waa wuxuu beegsanayo waxa waaye waa dhalinyaro wuxuu aflagaadeynaa waa madax qaranka soo xukuntay dalkan awaal baan soo gashay oo dalkan sabab u noqotay hataa maanta inuu wax asi noqdo asi argaxisu ka tirsanaan jiray sida xogta ku hay ani maartay meel kuma arkin laakiin sida xogta ku hayna maalin kasta la sheego in argixisada ka soo mid ahaan jiray argixisada ninkii meeshan ka saarin wuxuu ahaa Shariif Sheekh Axmed oo magaaladan ayadoo ay ku hareeraysan tahay madaxtooyada ay u jiraan 1 kilomitir wax ka yar ay u jireen oo madaxweynaha taa lagu soo wargelay in halis uu amnigiis ku jiro oo diyaar helicopter uu ka qaato la dhahay madaxweynaha meesha iskaga bax waa tii uu tuutaa gashtay uu ka degaan oo maartay uu ka degaan dabka siigaala madaxweyne intaas abaal soo gashtay madaxweynihii adduunka markuu dhabarkan aadiyay ku soo jeeday oo u wacay dhahay war dalkayga caawinaad u baahan yahay madaxweynihii dekada furay madaxweynihii elborg furay madaxweynihii maartay abaalkaas in ka badan soo gashtay Soomaalida in wasiir
aad aragteen asigoo bidaar leh oo hataa maaragtay tacbaan ah oo madaxweyne agtiisa ka muuqdo oo la soo gacan qabtay oo hataa sawirada waa ku arkaysaan waa ku arkartiin ma aqaana fiqi ma laha ninkaas waa tii u dhahay in la dilay ahayd maalintaas marka isku soo dubdo marka xaaladda dalka maanta marka waxaan rabaa marka waxaan ku jiray ninka taliyaha waxaan ku leenahay warniyahow maskax fikirtimaadan lahayn war waxaa la joogaa meeshii lahaa xasan sheekh maxamed walaalo wiilkaygiiyow lugaa dhiiqi lagu gelinayaa maanta dhiiqi qadar adaa kula jiro adaa ninkii walaalkaa saas jali lahaa oo dhiiqi lugaa uu ku gelinayaa warniya ummaddan ka hor leexo walaalo ummaddan maalinkas handadayso anigaan iyo tiimo dhalin aan ku jirno hataa feel oo hataa wuxuu nagu qoray qaran dumis ah xaggeen qaran ku dumin xaggee maaragtay annaga anagoo faasad wadana nama arkin anagoo qori wadana nama arkin anagoo wax wadana nama arkin intaas waxaa uu noogu juujuba oo noogu cawjuglena waxaa waay xasan aragtidiisa waa inaan ku meeysanaasana shibdhe hadda kore waxaa jirtay waagii oo argixisada ay xoog lahaayeen shibdhe ama shabaab ah waa la dhihi jiray ama shabaab ah oo shib iska dheh ama shabaab ka tirsana oo meesha laandheeray ama shib ah oo waxba ha sheegin hadda waxaa waay xasan u nacamleeya ama shib noqo waa bahashi taasina suurtagal maaha marna lama yeeli doono adftaaxow dhalinyaro badan hadda xabsiga ku jirto oo u xiran banaanbaxyada ama kacdoonka idinka wadaan darteed wiil iyo gabdho ayay ka kooban yihiin xabsiyaday ku jiraan kuwa ayaa soo baxay kuwana waa la geliyay madaxweynihii waa idin handadayaa fariimuu hawada soo marsiinayaa wasiirkii gaashaandhigga wasiirkii arrimaha gudaha wasiirka dekedaha taliyihii booliiska muqdisho intaasoo dhan fariimo adagay soo diraayaan waxay muujinayaan mowqif ah in la qaatay in magaaladan wax banaanbax aan lagu qaban karin idinkana waxaa rabtaan banaanbax inaad ku qabataan sidee la isku waafajin karaa adna arrintaas sidee ku saameysay